18 bishii September ee sanadka tan ayay ahayd markii ugu horeysay oo cabasho ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdiwaare oo ay ku sheegeen in dhulkoodii uu dajiyay ciidamo ajaanib ah iyagoona baaq u jeediyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya beesha caalamka iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle mana jirto ilaa hadda wax jawaabaha oo ka soo baxay baaqi ay jeediyeen milkiilayaashan dhulbeereedka ah. beertii Waare oo siiga haasto oo bariga gaaladaas iga dajiyay hadday bariga farmaajo iyo bariga wasaarad ka soo talin waayaan asniintaadi wixii liga halo oo dambi oo iga yimaada ayaga keensaday waa macaadi aniga awlaadii aniga waa isku baabacnay hantidayda xoog liga haasta xoog aan lii sheegtay 2 sano kaamil ayaa bariga beertaydiisaas loo dhaxday gaalo xawiirkan aad u jeedin cadidiisa ambiyo soo dhacay ambiyo tuurin mugurin karni qoryaa la taagan yahay maalkaayna caday aan la dhooha ninkii soo galmaara aw xismaysa ala guud laabe ihe farmaajo anaga soo gaaraano hadii dad muslim la yahay ilaa muddo ma fano oo dilaag diyayi habreeshka ilmiina waa kuwan waanu jeedi feeskan wuu arkatay ninkii islaa ninkii muslim oo feeski aka si dhaqti wax laga qabta ilaa duubaad haddii wax laga qawatan midii lamada tii ka dhacdo waa laga yaabaa talaalaad ogaana abi Cabdiwaare xoogigaad agaal daji xamirkan u jeedin geedahan anigoo yar ilaa halana camba ka qaadi jiri aabe Yaqub Sheekh Ibrahim Allah camba ka qaadi jiri xamirkan ku soo daali haddaan 3 sano aan ku jiray 3 sano aan ku jiro ilaa halaan anigoo aabe ani dhal wixii dhal ama aajoog ilmihiisii dhaliya kuwan ha meeshan taagan ayaan ku rafaasanay meeshan rafaad xamirkaani oo geedahayni oo saan ugu baabaan oo u rafaadni aan wixii rabna aan ka qaadi karin aan sameys karin aan qor nool haastay muslimka diinta islaamka shariicada islaamka haday saan qabto ana laga soo gaaro haday saan qabno xoog ma qabna Allah xoog qabo madaxweynaha farmaajo iyo Xasan Khayro waxaan baaq u jeedinayaa in si degdeg inaga soo gaaraan aantii maanta waxaynu ku xunnahay iyo ninka la yiraahdo Waare dhulkeen oo dhul beereed ee xamir ee cid walba say u taqaan qudaar laga qaadi jiray kuna salaysneed macnaan nolosha qoysaskeena inay maanta dajiyaan ciidamo ajaanib ah kana amar qaata ayaga naftirkooda sidaas darteeda dawladda dhexe oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaanu ku codsanaynaa hadii aynu nahay qoysaska dhibaataysan una dhibaataysan dawlad goboleed Hirshabelle maadaama ay tahay dawladdan dawladii ku faani jirtay inay noqon doonto dawladda shacabka dawladda macnaha ee cadaaladda sidaas darteed waxaan rajaynaynaa inay maamulka dawladda dhexe soo farageliyaan dulmiga ay nagu sameeyeen madaxda Hirshabelle guud ahaan gaar ahaan Maxamed Cabdiwaare iyo Cali Guudlaabe Xuseen waxaan aan rajaynaynaa inay noogu soo jawaabaan muddo 7 gudaheeda ah hadii ay noogu soo jawaab waayaan waxaan qorsheynaynaa hadii aan nahay qoysaska dhibaataysan dhulkoodana xoog lagu haysto banaanbax nabadeed cid doonaysa banaanbax alaadeed ha u bedesho laakiin waxaan ku baaqaynaa hadii 7 maalmood gudaheena laga soo jawaab waayo inaan isu imaan doono banaanbax nabadeed oo aan ku baad doonayna hantidaas naga maqan waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan baaqnigu anigu dirayaa in la dhaco hayo dadka bulshada ku nooleed gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar waxa la dhacay xamir oo anaga aan leenahay qoyskan oo leeyahay adeeradan oo leeyihiin oo anaga aan ku soo dhex kornay ku soo barbaarnay jooro dhan nacfi u lahay dadkii micnaha dhalinyarta Jowhar tagi jireen anbahooda ka soo cunu jireen cid laga cilna aysan jirin maanta waxa la sameeyay ciidan la dajiyay ciidankaas oo loogu talagalay dhulkaas in lagu boobo waxaana dhowr mar laga dacwooday dhowr mar Cali Guudlaabe waa loo tagay waxa loo tagay Maxamed Cabdiwaare waa loo tagay madaxweynaha waa loo tagay mar walba war iyo safaran aada iyo ku rug oo imaal oo ku jira wuxuu had ilaa cadeen aan kaga jeedno malaha waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaa war badan ma gal kari meesha awood uma soo istaagin inaan macaabin la eesiyo uma soo istaagin توكسن موسو استاجن وحن موسو استاجن ماشان وعي تاي إن دول كاين محمد عبدواري مدحوين هرشبيلة كأه دول كاين إنه نايكعه على جود لا وصل مدحوين كحجن
dhulkan in ayagana ammaan ay noo siiyaan dhulkan ciidankaas ay ka dulqaadaan haddii kale isbuuciisa oo tamaanka hadda dhammaado tamaanka haddii la gaaro waxaad ogaanaysiin annaga wixii naga yimaado waxaa mas-uulka ah maxamed cabdiwaare iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka cadaaladda ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaan guud ahaan sida madax u tihiin oo hirshabeelle u tihiin waxaan idin sheegayaa dhulkayna si degdeg ah ha loogu kaco haddii kale wixii naga yimaado idinkaa noo keentaan idinkaa naga keensataan midda labaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa tahay madaxdii dalkaa tahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre adina waxaa tahay mas-uuliyaddii dalkaa tahay waxaan idin sheegaynaa dhibaatada noogu lahaayo raggaas ay noogu hayaan si cad ah inaad noogu soo jawaabdaan arrinkaasna waxaad ka qabataan dood badan waa daalnay si tuugtameena waa daalnay tuugtan waa dhammaatay ilaa waxba dhoormayna dhagaxdii soo daayay taagan tahay tuugtan waa dhammaatay alisku bao haddii la rabo alisku bao dhulkaan inaan u dagaalanaan diyaar u nahay waa markii labaad oo ay cabasho gudbinayaan dadkan oo ah milkiilayaasha dhulbeereed deegaan ay ka dhigteen ilaalada madaxweyne waare ee ciidamada gaarka ee amisom saadax al ismaan dalka news TV jowhar.